السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصومالية دان ميل كستي دافع الدوية دا كجوكتوا السلام يا ما انت وحان إذين سيدا فرين مهم وانا من سنة هاي إنا دو وح بدن كفائدي دونتان فرين تاسي وحاوية سيدا على سعوتان لبدي بلودا وقود ميسي الدوية دا وحا فربا انكو هيا حانون جاينا كسو بلامي او كورونا فايرس ليرادو حانون كاسي انتي هوريتو عانيا نبد انتو ايشيدا maxaa ku raadayay ku wareegayay bay ahayd hadda waa soo dhigtay bariga dhaxu u soo dhacay Yurub soo istaagay Yurub waxa la socotaan inaga dad badan oo Soomaaliyeed inay kaga nool yihiin Talyaanigi waa u soo dhacay waxa weeye balqiisu qaaday Faransiis waa u soo dhigtay Germany oo aanu joogno waxa weeye saasu ugu lisayaa xanuunkaas waa masiibo waxa weeye cara xaq rabbi ka timi weeye horta marka ugu horeysa ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu inaka badbaadiyo adduunyada oo dhan uu ka dulqaado dalkeenii Soomaaliyeed ee xaaladiisa aan ka warhaynay wagashta tahayna ilaahay uu ka ilaaliyo baan maxaa ku raada ilaahay ka baryeynaa waa musharixi shilin ku reebay oo idin leh nacala shaydan ku yaale war fiidiyoga si share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina si ay wax ugu qaataan janaalka subscribe ku booda like tiyo commentigana soo badiya walaalayaal maalmii horeeto wacyigelin badan inta ka sameeyay dad badan ila yaabanaa oo lahaa war xanuunka hanoo saadin beelaayeen laakiinse waxa la rabaa waxa la yiri shar u tookay khayr wax kuma yeele waxa la rabaa inaad digtoon tahay mar walba digtoon tahay baa la rabaa oo waxa weeye aadan xunsho noqon waxa la yiri xunsho goorma wax dareenta waxa tiri marka dhagax igu dhaco midna igu soo socdo tuko goorma wax dareenta wuxuu yiri laba qof markay seegtaa wax dareema marka waxa la rabaa qofkii qofcaba ina ka caradhaal doonaya waxa la doonayaa kii ka yimid dal xanuunkaasi uu farabaan ku hayaba ina afka ka dubataa la doonaya waxa la doonayaa salaantii badnayd oo muxibada ahayd oo ii dhibta ahayd ina yareysaan baa la doonaya waxa la doonayaa meeli badnaa oo la isugu iman jiray ina ka go'daan oo fadhi ku dirkii ka go'daan oo waxa weeye suuqii loo shahdoonan jiray la joojiyo guriga lagu karsadaa la doonaya taxadarka badan in la sameeyo baa la doonaya arinta muhiimadda maanta aan u socdaa waxay tahay shalay waxaan damcay inaan suuqa u adeeg doontaan damcay sababtoo ah waxaan maqlay Germany in xanuunkii 79 qof uu ku dhacay oo waliba gobolkan deganahay oo la yiraahdo Northern Festivalen oo caasimadda ay Düsseldorf u tahay oo waliba 40 qof oo kamida u soo ritay marka waxaan isiri war magaca hajire xanuunku markuu dalalka saa u soo galo waxa timaado waxyaabo aan caadi ahayn dadka waxa dhici karta in lagu la taliyo inaysan guriyaha ka soo bixin waxa dhici karta in magaalooyin dhan bandow la saaro hadii xanuunku faraha ka sii baxo waa dhici karta waxa dhici karta goobihii ganacsiga in la xiro waa dhici karta waxa dhici karta dadku waa nafle waa inagoo kale intay baqaan intay dukaamada ku jabaan wixii yaalaba inay qaataan oo dukaamadii haawanaya u tagtaa dhici karta marka waxaan isiri warmaandhow waa intaasoo la dhaho lama soo bixi kara ama adu alfahaaga la boqdo gurigaaga iska joogtee soo adeego oo wixii aad ku noolaan lahayd soo iibso maalin horeeto oo hadda muddo bilka hora baa waxaan damcay inaan soo iibsado bahalka sanka lagu duubto maskaasaan damcay inaan soo iibsado marka shan farmasi baan tagay shantaba waa ka waayay mid baa ilaahay laba baako iga siiyay laba baako oo kaliya baalkaasaan ka soo iibsaday waa haystaa maanta hadda Germany wareegto oo meel walba istaagto isbitaalada hatta u dhacdo bahalka ka soo helmaysid waa la dhameystay marka waxa weeye maanta waxa khatar loogu jiraa briiski in la dhameysto shalay waxay taagneed bahalka afka lagu duubtay taagneed maanta briiski baa khatar jooga shalay galabaan baxay maqribkii maray ahayd dukaamadan dabcayna ka soo adeegto waxaan la yaabay kuyuga dadku ku jiro birihii la qaadan jiray oo dukaanka la gali jiray ma yaalinba dad baa kula jira kuyuu baan ku jirnaa si aan birtii u qaadano birtii markaan helay dukaankii waa galay daqiiqi ma taal sonkori ma taalo alaabo badan roodhi ma yaalo wixii dhamaa oo muhiimka ahaa ma yaalin dukaankaasi Lidl buu ahaa waxaan ka qaatay biyo baan ka qaatay iyo muxuu ahaa wixii kale ka qaatay wax yar baan kolay ka qaatay marka wax nafle waayay Kooflaan baan u dhacay waa ogtihiin oo wax walba haya oo waxa weeye magaalo guureysa baan u dhacay daqiiqdii waa ka waayay sonkortii waa ka helay
caanihii faadkoodu ahaa 3.5 waa ka waayey 1.5 suuq qura oo kartoon waxa way isku guranayso baa yaala roodhi waa ka helay waa ka tagay liidal baan u dhacay aldi baan u dhacay aldi baan u galay waxaan ka helay waxaan ka waayey bariis waa ka waayey waxaan ka helay daqiiqdii waa ka waayey sonkor ma leh caano ma leh sharaab baan isagana ka soo helay marka waxa weeye baradho ma leh ilaahu aadan beerka beelin waxyaabihii muhiimka ahaa dukaankii waxaad dareemaysaa hawsho badan inay jirto waad dareemaysaa waxaan marka ummadda Soomaaliyeed kula talinayaa oo Germany jooga ama Yurub jooga America jooga Australia jooga dalalkaas xanuunkaas laga sheegayo jooga war inta goor tahay waa intaasoo xanuunka hadhowdii dadku ama ay adeegyada dhameystaan ama la yiraahdo magaalada oo dhan waa naxanibay war inta goor tahay taga oo waxa ku noolaan kartaan haddii xanuunku farabaan magaaladiina ama gobolkiina ama godankiina uu ku hayo ama uu maxaa ku raadayay u soo dhaco si aad guriga hoosta u xirataan xanuuna kan masiibada ugu weyn waxa weeye wuu faafaya qofkii hadduu ku arko hadduu kugu akindhiso waa la kacaysa hadduu ku salaamo waa la kacaysa hadduu ku garbiyo waa la kacaysa haddaa meel isugu timaadaan waa la kacaysa saas masiibada ugu weyn xanuunku qabo xanuuna ka daran baa jira xanuunku dadka uu dilayo boqolkiiba 2 weeyba hadda lagu qiyaasay dadka uu dilayo oo u badan dadka waayeelka ah iyo dadka da'da yar bay dadkaas u badan yihiin oo maxaa ku raada ciyaalka bay u badan yihiin dadka uu dilaya ma badna laakiin mushkiladiisu waxa weeye xanuunku uu faafaya qadhan daran buu leeyahay waxyaabaha lagu dareemayo gabigaaga badhan maxaa ku raada waa gubanaysa waxaan ku raadayay dhuuntu waa ku xirmaysa oo neefsashadii baa ku adkaanaysa sanbabadu u dhacaya beerku shaqadii waa joojinaya maxaa ku raada duufkaaga badanaya calaamadaha noocaas hadda iska aragtaana gaara goobaha lagu maxaa ku raada lagu control gaara wadamada horumaray oo Yurub leh oo Mareykan leh oo Australia leh iyagu way ka duwan yihiin Africa iyo Asia waa ka duwan yihiin maxaa ku raadayay waxa weeye caafimaadkooda iyo infrastructure maxaa ku raadayay hay'adaha caafimaadka ama maxaa ku raadayay agabkooda caafimaadku wuu sareeyaa laakiin se waxa kan bilaa wax ka qaban karta waxa kan wax la celin kara maaha jayna oo ogtihiin oo hal toddobaad cusbitaal 10,000 oo qof qaadaya ku dhisay oo kii labaad ku dhisay oo ogtihiin oo dhaqaalihiisa iyo awoodiisa ala socotaan buu balqiisa qaaday oo isdhiibay waxa la socotaan Mareykan oo dalkii adduunka ugu dhaqaalaha badnaa baa waxa la socotaan hadda stock marketkii suuqii saamiyada lagu kala iibsan jiray inuu masalifay oo muddo yar oo 2 bari mise 3 bari weeye 5 trilyan baa Mareykanka ka lumay sababta ay stockii qiimi baa dhacay dadkii oo dhan baa iska gadaya shirkadii saamiyada ku lahaayeen bay gadayaan xanuunku marka dhibtaas u leeyahay Talyaaniga oo dhaqaalihiisa waayadii ugu dambeysay laga dayrinayay 3 bilyan iyo 500 oo milyan oo euro buu maanta ballan qaaday maxaa ku raad inuu kula dagaalamayo xanuunka kula dagaalamayo marka wadamo fiican weeye laakiin de waxa loo baahan yahay in la isdhigto ma Jarmal baan joogaa waa wadan dhakhtar leh ilaahay baa nafta bixin kara haddii xanuunkaasi ugu dhaco dhakhtaradaas aan ku ordaya haddii kale tan alxamdulillah waxa inaad tiraahdo ma waa inaad taxadarto weeye waa inaad taxadarto waa inaad qofkii la yiraahdo wadanka xanuunka qaba uu ka yimi oo weliba khaasatan 2 toddobaad ugu dambeeyay buu ka sukaya waa inaad 2 cagod ka carado weeye waa inaadan soo hoyeysan waa inaadan salaanta ka qaadin waa inaan maxaan ku raadayay haddii aad laftigaagu dalalka aad booqatay xanuunka lagu sheegayo waa inaad gurigaaga isku karantiinayso muddo 2 toddobaad oo aadan ka soo bixin weeye marka xanuunkii dhibaatooyinkaas uu leeyahay cabsidaas jirta dadka Germany ku nool kuwa Yurub jooga kuwa Mareykan jooga kuwa dalalka xanuunka laga sheego jooga waxaan kula talinayaa inta goor tahay warana daqiiqdii la iga dhameystay warana sokotiya Allah ku soo helay warana caano welila waxaan idin leeyahay dukaamada ha lagu yaaco ha laga soo iibsado adeeg weliba si xaasidnimo la yaa loo soo iibsano qofku wuxuu sanad cun lahaa ayuu soo qaadan wax adigu muddo bila ku hayn kartaa waa adeeg dadkoo dhan ka dhaxaya moogta adeeg dadkoo dhan ka dhaxaya ummadoo dhan ka dhaxaya marka cabsida faraha badan ha la iska yareeyo ummad islaamaan nahay waxa weeye de ilaahay baa qadartaya laakiin isdhigan mayno dukaamada ha lagu yaaco adeeg ku hayn kara 2 usbuuc bul 20 cisho ha laga soo iibsado gurigan ha la soo dhigto
waxaan arkay kuwa carab oo hadda fiidiyoyadooda meelaha la soo dhigayo intii dukaamadii Jarmalka tageen ya wixii yaa laga qaaday taa lama rabo dadka kale waxooda dadka kale ma dilaysa umadii kale ma cila dhigaysa maya wixii mudabila ku hayn kara oo kugu filan soo qaado anuu maanta shalay oo sabti ahayd waxay ku filan soo qaatay waxyaabaha iga dhiman waxa iga dhiman insha Allah taala subaxa isniinta marka dukaamada la soo buuxiyo baan ku jarmaadaya haddii tahay kartoon caan ah haddii tahay maxaan ku raadayay burka haddaan soo helo waxyaabaha waliba muddada ooli kara soo iibsada waxaan muddo ooli karin haddaa guriga soo dhigato oo tiro badan de waa ka xumaanaya taasaan idin kula talinaya cabsida faraha badan hal la iska ilaaliyo cabsidu iyada xanuun cabsidu laakiin waxaan idinku boorinayaa waxa weeye taxadarka salaantii badnayd ya hal la joojiyo maxaan ku raadayay Soomaalida waxa weeye damqashadii badnaa oo lagu yaqaan maxaa ku haya hargab alla waa qandhoonaysa bismillaahir rahmaan hal la joojiyo qofku hadduu yiraahdo hadduu qofco waa qandhoonaya ya magaca jiray dhakhtarka aade annaka carar waxaa ku darsan salaantii badnayd oo ii dhibta ahayd hal la joojiyo fadhi ku dirirka inta la tago ya qabyaalada saa loo jarjari jiray maamulada waxyaabahan dalino ku jiro waqtigu inuu kaga lumi jiray oo waxa weeye taa la joojiyo maxaa ku raadayay waxyaabaha la joojiyo anigu toddobaadkii hadda la soo dhaafay ciyaalkayga ma geyn xanaanada ma geyn ciyaal yar dhalay marka saddex kamid ah xanaanada ii taga xanaanada marka ciyaalka ma geyn waa ka jooji dhakhtarka u tagay gabar gabdhaha kamid ah baa maarta qandhootay oo waxa iskaga dhacay hargabkii caadiga ahaa marka waxaan war cabsi baan dareemayaa magaalo ii dhowna waa lagu sheegay bahalka waa lagu sheegay xanaanada ma ka joojiya ciyaalka maya buu yiri waxaasi wuxuu yiri waa jaahilnimo xanuunku hadduu soo galo dadku waa xaraarada aad baa loola socdaa dadka magaalooyinka imanaya waa la jeegaraynaya marka wuxuu yiri haddii xanuunka la bahalkayo xanaanada iyaaba la xirayaaba marka waxa cabsida iska daa ciyaalka dir buu yiri isniinta marka ciyaalka waa geynaya insha Allah taala usbuucii dooyto dhan ma angeen gurigan ku haysti marka waxa la rabaa xanaanada oo kale waa ina newska eegtaan oo magaaladaada haddii xanuunka lagu sheegayo oo xanuunkii magaaladaada u soo dhacay leeyahay waa ina taxadar badan muujiso waa ina qof dhaga xiran noqoto lama rabo anu bil ka hor baan bahalkaas sii gatay maanta meel u yaalo male marka waxa la rabaa ina newski la socoto la rabaa haddii magaaladaada wararka caalamka aad la socotid kii maxalliga ahaa oo magaaladaada dalkaaga gobolkaaga aad la socotid markii aad ogaatid magaaladaada in lagu sheegay waxa weeye guriga hoosta ka xiranaysa waxyaabo badan oo ka hortag ah baa samayn kartaa saasaan marka ummadda Soomaaliyeed ku boorinayaa waxaan leeyahay bala sheegayaan lay arkin inaan bala wadayaan lay arkin war waa wacyi gelin weeye waxaan sheegayaa waxaan soo arkay weeye waxaan sheegayaa waxaan soo maqlay weeye waxaan sheegayaa wax igu soo dhacay weeye marka hal taxadaro dadka waa u jeedaan mootada dhinacayga maraysa afka xataa u duuban indhaha xataa u duuban marka bahalkaas anu hadda ma xirto lama rabo hadaa haystaan ina xirtaan hadda lama rabo bahalkaasi khaasatan wuxuu aad u anfacayaa dadka qandhada isku arka si aysan dadkii kale u sumeyn iyo markii magaalada xanuunku soo galo dadka dhamay ay xirtaana waa bahalkaynaysaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye xanuunka sida ugu muhiimsan oo looga badbaadi karo waxa la isla qaatay inay tahay farahaaga ina mar walba dhaqdo oo 10 daqiiqo macnaa muddo dhaqdo oo intaadan dhaqina marka suuq aado oo kale inaad farahaaga ka ilaaliso sanka iyo afka iyo inaad ka ilaaliso dhulkaas dadka fayris ku galaya baa la yiri talooyinkaas aan kula talinaya waa musharixii shilin ku reebay oo idin leh nacala shaydaan ku yaale war fiidiyooga sii share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina si ay wax ugu qaataan janaalka subscribe ku booda like iyo commentiga soo badiya tani inta barnaamijka lamida ku kulmi doona waxaan ku dhaafayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh